runtii waxaan rabaa inaan soo koobo maadaama balamo badan magaalada ay ka jiraan taasna aan rabno inaan dad badan ka qayb gal halkan joogan buugan waxa la yiraahdaa waayihii Dhuusamareeb wuxuuna ka hadlayaa taariikhda magaalada caasimadda ah aragtidan buugan waxay soo bilaabatay 2011 2011 ayaan ku fikiray inaan magaalooyinka Soomaaliyeed wax ka daraasay marka iyada iyo Gurceel ay kamid ahayd buugan Gurceel ka qoray 2018 jirtay ayuu ku mataan aha laakiin shaqadan inaan qabto waxay soo bilaabatay 2020 oo halkan imaaday oo odayaashii ugu horeeyay aan la kulmay marka aragtida aan ka duulayana waxay ahayd dadkeena inta badan wax qoro waxay ahaayeen dad inta badan Soomaali u dhalan oo ajaanibta ayaa su'aalaha ugu badan dalka wax laga weydiin jiray laakiin fikradaas aniga waxaan rabay inaan bedelo oo dadka Soomaaliyeed ee dhalinyarada inay wax qoraan taariikhdeena aan halkaga sheekay marka waayaha Dhuusamareeb waxa uu ka kooban yahay kafarkaas saddex qaybood bilowgii magaalada inkastoo sawirkaas 1950kii sawir qaadayaal Talyaani ay qaadeen waa ceelashii magaalada Dhuusamareeb sawirkaas kale waa madaxweyne Maxamed Siyaad Barre Ilaahay ha u raxmade oo mashaariic magaalada Dhuusamareeb ka xarigi jaraya iyo sawirkaas oo ah galmudugta cusub oo ah madaxtooyada galmudug saddexdii waqti aan isleenahay waa ugu quruxda badneed magaalada caasimadda iyadoo hadda ku jirto waayaheedii dib u soo kabashada marka buugani 5 sano ayaan qorayay oo shaqada xoog galay cutubiyada uu ka kooban yahay hadaan buugan dul istaago waxa uu ka hadlayaa taariikhda guud ee magaalada Dhuusamareeb sidoo kale wuxuu ka hadlayaa Dhuusamareeb goortii ugu horeeyay la deegaameeyay waa 1890 inta badan magaalooyinka Soomaaliyeed saddex loo qaada xadaaradooda ka dhalato magaalooyin xadaaradooda ay ka dhalato xeebaha sida Muqdisho Baraawe Marko magaalooyin xadaaradooda ay ka dhalato hareeraha wabiga sida Jowhar iyo Afgooy iyo magaalooyin xadaaradooda ka dhalato Ceelasha marka Dhuusamareeb Ceelasha ay xadaaradooda ka dhalatay oo waxay ka mid tahay magaalooyinka ay xadaaradooda ka dhalatay Ceelasha marka sawir badan oo qadiimi aan ka haya sawirka aan ugu badan ee deegaanka laga hayo waa sawir la qaaday 1927 waan jeclaa lahaa hadii dhalo weyn screen ah inaan intuso sawirkaas waxa laga qaaday tuulo la yiraahdo Sinadaqo 1927 sidoo kale waxaan hayaa sawiro laga qaaday xarumo booliis oo ku yaala magaalada Dhuusamareeb oo ciidamo lagu tababarayay xilligii maamulkii Afis Administrazione Fudishario Italo Somalo marka buugu wuxuu ka hadlayaa waayihii Dhuusamareeb iyo waqtigaas la deegaameeyay sida dhaatada dawladda hoose ku qoran inkastoo la isku khilaafsan yahay laakiin dhaatada saxda ah 54 inay degmo noqotay ayaa ku qoran local government loo sameeyay sidoo kale buugu wuxuu ka hadlayaa magaca Dhuusamareeb oo ilaa 8 aragti oo kala duwan u soo qaatay dadka qaarkood magacu wuxuu ka yimid Dhuusamareeb oo ah meel xanaan ah oo loo gudbay dadka qaarkood ku dhahaya Dhuusamareeb waayo ceel ba ku yaali jira meeshan oo biyo qaraar ah oo dadku markay cabaan isbedel ku dhici jiray okay sidoo kale magac kale jiro oo magaalada aad loogu yaqaan oo Hadaar Dheer isagana wuxuu ka mid yahay magacyada aadka loo xasuusto sidoo kale magac kale jiro oo waadixay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo markii shirarkii kala duwanaa Dhuusamareeb 1 2 3 halkan lagu qabanayay loo bixiyay oo ahayd Samareeb marka ilaa 8 aragti ayuu soo qaadanaya sidoo kale buug wuxuu ka hadlayaa maamuladii kala duwanaa ee soo maray magaaladan taariikhda waa la fogeystaa maxaa yeelay primary data Soomaalida laga qoray aad ay u fududahay aad ay yaani u yartahay marka warku waa ka istaaga marka waxa u baahan tahay data kale iyo xog kale inaad ku dartay oo secondary data maamuladii magaaladan soo maray maamulkii ugu horeeyay ee nidaamsan wuxuu ahaa maamulkii saldanadii Ajuuraan saldanadii Soomaaliyeed oo ka dali jirtay min Hobyo ilaa Kismaayo magaaladana waxa laga xukumi jiray degmada Ceelbuur ee bariga gobolka Galgaduud ee Kismudug halkaas ayaa laga xukumi jiray iyo maamuladii ka dambeeyay Hiraab ilaa Talyaanigi sidoo kale magaaladan dadku aad uma xasuustaan magaaladan 7 sano waxa ka dali jiray maamulkii Ingiriiska markii dagaalkii labaad ee adduunyada Ingiriiska laga qabsaday Talyaaniga looga raayay waa tuu Ingiriiska qabsaday Ingiriisku wuxuu sameeyay inkastoo taariikhda Ingiriiska halkan ay aad u yartaa laakiin Talyaaniga ku badan laakiin Ingiriisku buugu kuma jiro laakiin waxyaabihii dib iga soo dhacay ay ka mid ahayd oo dad qurbaha ka yimid ay ugu kordhiyeen sidoo kale maamuladii kala duwanaa maamulkii dawladii kacaanka ayaan isleeyahay magaaladani waxa ay udub dhaxaad u ahayd dawladnimadeeda waxa la sheegaa inay ahayd magaalada saddexaad ee ugu xarumaha badan ee dawladda marka laga soo tago Muqdisho iyo Hargeysa buugana waa ku arki doontiin 70 xarumood oo
wasaarado wakaalado iyo hay-ado dowladeed ayaa halkan ku yaalay hadda jidkan markaad hore u qaadid inta wasaaradood oo jidka saaran waa dareemi kartaa iyo haykalka dowladeed ee halkan ka muuqda sidoo kale buugga waxaa ku xusan nin la yiraahdo General Morgan ilaahay ha u raxmadee oo taliye qaybta 12aad waa ninkii master plan-kan magaaladan sameeyay ku dhawaad 40 sano ka hor oo jidadka waaweyn ee gadoon iyo jidkan kadiye iyo jidkan ceelbuur jidad badan magaaladan ka falay abaal badanna ku haya sidoo kale buuggu wuxuu ka hadlayaa dadka caanka ah ee deegaankan ka soo jeeda ayuu ka hadlayaa oo ka mid yahay madaxweyne Cabdiqaasim madaxweynihii jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya sidoo kale Cabdi Faarax Shirdoon Saacid sidoo kale Cabdiwali Cali Gaas sidoo kale Cabdi Xaji Goobdoon oo wariye caan ah oo Soomaaliya dhan laga wada yaqaano sidoo kale Xaliimo Khaliif Mogool ilaahay ha u raxmaday boqoradii codka shacabka u tuma sidoo kale buuggu waxa uu dul meerayaa taariikhda diineed ee magaaladan waxa ku yaala dariiqada suufiyada ayaa aad uga awood badan xagga marka fiiriso magaalada waxa u jeedaysaa laba masaajid oo weyn oo udub dhaxaad u ahaa Sheekh Yuusuf Ibraahim iyo Sheekh Cabdi Dabaadi oo runtii dadkii udub dhaxaadka u ahaa xadaaradii diin faafinta ee bartamaha Soomaaliya sidoo kale buuggu waxa uu tusaaleynayaa muhiimadda ay leedahay kobcitaanka magaalada Dhuusamareeb caasimadda Galmudug markay noqotay waxay yeelatay waji cusub oo ah magaalo horumaraysa la jaan qaadaysa magaalooyinka kale marka dib u soo kabashadan iyo mustaqbalka Dhuusamareeb ayaan ka hadlay oo jidadka iyo horumarka magaalada ka socda ayaa qayb ka ah sidoo kale buuggu magacaas waxaan rabaa buugga inaad hal mar u sacbidiin maamulahayga iskoolka Ablaal maamul Cali Duduul hal mar istaag maamul hal mar istaag maamulahayga hal mar igu sacbiya waa abwaan golaha abwaaniinta Soomaaliyeed ee Galmudug ayuu ka tirsan yahay runtii magaca Dhuusamareeb waayii Dhuusamareeb markaan aan bixinaynay ilaa 10 magac ayaan isbarbar dhignay magacii ugu qiimaha badnaa ayuu noqday waa maasanta gudoomiye maamulahayga waa maasanta sidoo kale hadalkan kale iloobayaa maadaama sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan ku cadeeyo kafarka kala buugga waxa ku yaala historygayga oo backgroundkayga oo kooban aniga waxaan ku dhashay magaalada Leera Gurceel deertii biyo badan 97 markii ugu horeysay adduunyada Elina la helo deertii biyo badan waxay ahayd deer 6 bilood roob da'ay marka xilligaas aan dhashay inaan duqaahay halkaas laga cadeynayaa waxbarashadeeda waxaan ka baxay jaamacadda Muqdisho oo aan bartay xiriirka caalamiga iyo jaamacadda Joogkii Salaam khibradahayga shaqo waxaan ka soo shaqeeyay meelahaas sidoo kale waxaan qoray ilaa 4 buugaas federaal sunuqay waa buugayga ugu caansan curadkeygana aan dhihi karo buugaas laba madaxweyne oo federaal ah iyo 3 state ayaan u geeyay sidoo kale buugga islaamka iyo dunida iyo masiibada madow Afrika waa 2018 buugga Gurceel Jannaad iyo federaal sunuqayna waa 2018 marka shantaas buug ayaan qoray inta badan waxaan isku dayaa in taariikhdeena aan kaga sheekeynin maxaa yeelay taariikhdeena annaka iska leh waa taariikhdeena nalkaga ma sheekay karno annaka ka hadli karna waxaan nahay iyo mustaqbalkeena iyo qaabeynteena annaka nalka rabaa in wax nalka weydiyo marka Dhuusamareeb maanta sharaf ay tahay intaas oo ummad ah oo caasimadda jooga aniga muhiimadda waxa waay madaxda waxa iga qiimaha badan shacabka runtii waxaan u mahad celinayaa madaxdeena sharafta leh iyo shacabka laakiin aniga maadaama bulshada rayidka aan ka yahay shacabka inta badan taageerada aan ku leeyahay marka inay sacbidin waa maxaa sababta aan leeyahay shacabka waa maasantiin runtii magaaladan Dhuusamareeb waa magaalo hadda ka gudubtay nin la yiraahdo Axmed Xirsi oo Mareykanka jooga baa wuxuu yiri reer Galmudug waa Soomaaliya dhan marka reer Galmudug maadaama dad Soomaaliya dhan lagu wada kulansiiyay way ka saameyn badan yihiin dadka marka caasimadda in kor loo qaado oo runtii waa wax waajib na wada saaran marka runtii waa soo gabagabeynaya wixii su'aalaha iyo commentigana waa igu darsan kartiin waxaan rajaynayaa insha Allah buugan editionkiisa labaad inaan wax badan ku dari doono marka sharaf iyo karaamo